السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتا كحران جنالك وحان إذن ليه كسو هذا مقال كان وحاوها من كنت تخصصي علمك الجغرافية أهانا عالم دينيد يقانين علمك فلسفة يا علمك دختر لماذا وحاوها نين سفر بدن أو ضم بدن كنت جاي سفر وحاوها نينك وجوهريي أي مسكحني سأي كسو ما حتى inuu sawiro khariirada adduunka nashqadeeyana daawade haddaad nagu cusub tahay muuqaalka like saar sidoo kale subscribe saar si aad ula socotid muuqaal walba oo aan soo geliyo channelka mahadsanid. Maxamed al-Idriis al-Qurdubi al-Xasan al-Sibti waxa uu ku dhashay magaalada Sibti ee dhacda waqooyiga dalka Morocco waxaana uu dhashay sanadii 493 ee hijriga kuna beegnayd 1100 ee miilaadiga. waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee cilmiga juqraafiga ka qoray buug waxaana uu ka qoray buugaag aad u badan. buugagtii uu ka qoray cilmiga juqraafigana waxa ugu caansan buugga lagu magacaabo Nazhatul Mushtaaq. waxa uu waxbarashadiisii ku soo qaatay Morocco waxaana uu ka soo qalin jebiyay jaamacadda Qayrawiya. Maxamed al-Idriis khariiradii uu sawiray waxa uu ku muujiyay dhulka xeebaha leh, dhulka hawdka ah iyo dhulka beeraleyda ah iyo dhulka bannaan. waxa uu soo bandhigay khariiradii uu sawiray boqorkii Rogerkii labaad waxaana ka soo muuqday wadamo badan oo kala ah Ingiriiska, Ustaadiniya oo ah Turkiga, Masar, Portugiiska, Seychelles, Faransiiska iyo wadamo kale oo aan halkan aan ku soo koobi karin. Maxamed al-Idriis waxa uu geeriyooday 1166 miilaadiga kuna beegnayd 559 ee hijriga.